musharaxa taageersatahay maxaa ku taageersata waxaan ku taageersanaay maxaad qabanaysaa hadda xog kala wareegtaan waxaan qabanayna maxaa ka dambeeyay waa la heshii waa la isafiyay dan iyo mowqif adag oo laga mideysay oo ah ka hadda ku taaganahay iyo calankaas darwiishka ayaa la isku dhaarsaday dawaada waxa aan jirtay war ninkaas midnimada ilaalin maayo musharaxa koowaad waa Cabdiqaadir Axmed Abu Cali abana xukunka hadda jooga musharaxa labaad waa siyaasi weyn Cabdirasaaq Khaliif Axmed Dawdar musharaxa saddexaad ilaa hadda aan ognahay waa madaxweyne ku-xigeenka dawladda SSC Khaatumo Dr. Maxamed Shiine mucaaradka muxaafidka waxaan leeyahay qof laguma bedelo waxa lagu bedelaa aragti lagu bedelaa insha Allah anagu ciidaanu taageerayno iyo ciidaanu sharaxayno bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan meel kasta oo ka dhageysanaysaan soo dhawaada waxaan ka hadlayaa mowduuc aad u muhiim ah oo aan doonayo in la gaarsiiyo dadka heer SSC Khaatumo mucaarad iyo muxaafid bay hadda kala yeelatay SSC Khaatumo xilligii doorashooyinka ayaa la galay marka hardan badan baa socda oo arrimaha doorashooyinka hadday dawlad tahay mar haddii waxa weeye kursiga la kala riixanayo waxaa oran kara hadday dawlad tahay waxaan rabaa dadka inaan laba qodob aan focuska saaro caawa arrinta koowaad musharaxiinta sharaxan iyo qaabka hadda loo wajahay oo labada dhinac musharaxiinta taageerayaashoodu qaabka ay u wajaheen arrintaasna waa ka hadli doonaa shirweynihii SSC Khaatumo ee kumeelgaarka laga baxayna hadli doona qodobkaasna arrinta beelaha sanaag iyo qaybta ka noqon doonaan maamulka ina waa ka hadli doonaa haddaad mucaarad tahay haddaad muxaafid tahay barnaamijka uu ku raali gelinayaa isgaarsiin oo sii fogeeyo sii nashaar gareeyo waayahay aad baad maanta tahay haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir YouTube ka subscribe leh page kana follow leh channel kan waxa la yiraahdaa magaciisa madani baa la yiraahdaa si kala hadaan u dhigo waa gaarhaye waxaan arkaa maalmaha media loolan badan oo arrimaha doorashooyinka oo ka socda taageerayaal badan oo kala taageersan musharaxiin kala duwan media isku weeraraya SSC Khaatumo waa dawlad waxa loo baahan yahay dawladuna mararkana kale election la galo dadku inay dimuqraadiyadda ilaaliyaan waa in tudaalo la muujiyo weeye waa inaan xadgudub la sameyn waa in lagu eekaada xayndaabka SSC Khaatumo waa in la dhowraa haddii aad siyaasi ka aragti duwan tahay ama aad kala aragti tihiin taas kuma fasaxayso haddaad siyaasi kala aragti tihiin inaad sharaftiisa iyo cirdigiisa aad ku xadgudubtid adigoo doonaya musharaxa wadatid inuu kursiga fuulo anigu reer SSC Khaatumo dhan dhaxbaan u ahay cidda aan isleeyahay maanta Khaatumo waxay u tahay naruuro way badbaadin kartaa oo way mudan tahay waqtigeeda la sugaya insha Allah waqtigeeda baa la sugaya caawa muxaafidka mucaaradka kala raaci maayo oo caawa dhaxbaan u ahay waxaana qabaa in tudaalo badan la sameeyo oo waliba dhalinyaradan leeyahay siyaasigan taageeraysid marka uu kursiga fuulo adiga soo haraya marka ayaanu hadalka tagin mucaaradda iyo muxaafidku waxa loo baahan yahay inaad ku tartantaan maxaad qabanaysaa siyaasigaada wadi muxuu qabanayaa maxaad Khaatumo ku soo kordhinaysaa maxaa leerka iyo biyaha iyo ciidanka iyo mushaaraadka ciidanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha maxaad ku soo kordhinaysaa qadiyadii loo dhintay xagee ka sii wadaysaa cadawga SSC Khaatumo aragtiyahan xagee ka jiraan aan horumarin sheeg waxaad bedelis laakiin ma hebel baan nacay hebel kana soo wada ma taasiyadu sida uma shaqeyso dawlad baynu noqonay waa in qaabkii dawladnimada waynu dhaqano weeye oo nidaamkan waxa weeye la kuro ayda siyaasi la caayo mid xukunka hadda jooga ha ahaado ama mid waxa weeye xukunka banaanka jooga ha ahaado labada dhinac waxa leeyahay halka ma dimuqraadiyadu ma taalo Facebook-na waxba laguma doorto dawladdan SSC Khaatumo dawladaha kale way ka duwanta xinjiro rag weeye waxaad ku dul ciyaaraysaa maamul iska waxa xaalad stable ku jiro oo muddo badan soo jira ma aha waa urdin waxa loo baahan yahay waxaynu ku soo caanamaalay waa midnimo qof kastana aragti buu leeyahay xor buu yahay kii aragtida qaba in xukunka fardhiimo raba lagu celiyo xaq buu leeyahay ka aaminsan in Cabdirasaaq Khaliif ama Dr. Shiine la keenay xaq buu leeyahay ومواطن وي أركتيديس لك وحلو بهاي كمحافظ كا كمعارض كا
inuu si caafimaad qabta uu cabiro oo aanay ku jirin qabyaalad kala qaybin inaanu hadii la kuuriyo absolute intaas buu ku milmay sharaxa taageersan tahay maxaa ku taageersanta waxaan ku taageersanaay waxaan ku taageersanaay maxaad qabanaysaa hadda xog kale wareegtaan waxaan qabanana dimuqraadiyadu sidaas weey laakiin in la iscaayo oo la isaflagaadeeyo oo waxa weey wixii dadka reeraysi qaatumo ay ka heshiyeen dib loo soo fogo absolute wax khalad weey waxa arkaa dad soo fogaya SNM baa loo shaqeyn jiray SNM baa loo shaqaasi waa laga heshiyay xalay dhalay baa laga noqday reer qaatumo isu yimaadeen candhuuftooda dib bay u liqeen waxa weeye way iska hadii la kuri afiyeen shirkii 6 February 2023 baynu isku laab xaaranay oo la is afiyay ragga hadda halganka guushiisa qaybta weyn ka qaatay ee dagaalamayay ee ku dhintay ee ilaa maanta u taagan 6 February ka hor deesana bay mushaaraad ka qaadan jireen waa dhab oo intaasi waxay kaga jirto malmadow ma jirto laakiin waxa la fiiriyaa maxaa ka dambeeyay waa la heshii waa la isafiyay dan iyo mowqif adag oo laga mideysay oo kan hadda ku taaganahay iyo calankaas darwiishka ayaa la isku dhaarsaday u dagaal galay oo ragga badankiisa ku halgameen marka ninkii shalay halgamay ee tolkii raacay ee tolkii garab istaagay ee wixii fikirkii khaldanaa ku jiray uga soo beeray tolkii iyo aragtidaas maanta aynu ku taaganay dawladnimadana in la rumeeyo ninka ku caaya ee ku aflagaada waaba waxa aan jirtay war ninkaas midnimada ilaalin maayo wada jir ilaalin maayo 6 February waxa midoobay wiilka reer SSC Khaatumo ee Puntland joogay iyo kii SNM joogay iyo kii meel dhaxad joogay intaas isku mowqif isku qadiyad bay qaateen oo dawladda SSC Khaatumo waana dawladda calanka la weey marka waxaas oo dhan lagu midoobay laguma faquuqi karo laguma caayi karo laguma aflagaadeyn karo nin muwaadin oo xaq u leh waxaas waaga ahaan ma shaqeyso maanta muxuu yahay shaqeynayso haddii qadiyadana duulaan ku yahay waa inuu aragno inuu cadow la socdo waa iska qabanana haddii aanu aragno inuu naruuro inoo yahay wanaag inoo wado waxa weey samanta bixin karo Khaatumo waa soo dhaweynana soo far hadda waxaan ogahay saddex musharax baa u cadcad ama sharaxana ama xogtooda haya musharaxa koowaad waa Cabdiqaadir Axmed oo Cali abana xukunka hadda jooga musharaxa labaad waa siyaasi weyn Cabdirasaaq Khaliif Axmed Dawdar musharaxa saddexaad ilaa hadda aan ognahay waa madaxweyne ku-xigeenka dawladda SSC Khaatumo Dr. Maxamed Shiine jira musharaxiin badan oo iyaguna imaan doona oo la hadal hayo laakiin inta aan confirm ka hayno waa saddex musharax waa saddex nin oo mas'uuliyiin oo u qalma inay dadkan hogaamiyaan reer SSC Khaatumo hadaan ku bilaabo madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Cali Firdhiye meesha uu soo gaarsiiyay Khaatumo wala soconaa meesha uu Khaatumo ka soo qaado waa garanana waxa weeye sagxadu ka soo qaaday meesha ay maanta taagantahay in la wada hungureeyana isaga keenay guuraha uu keenay iyo naruuraha uu dadka Khaatumo reer Khaatumo horseeday iyo sidoo cadow uga difaacay wala soconaa waa u qalmaa in mar labaad la doorto haddii calaf ugu jiro inka labaad Cabdirasaaq Khaliif Axmed waa halgamaa weyn xilli adag dadkan samata bixiyay isaguna oo markii loogu baahida badnaa garab istaagay dadkiisa oo wax kasta oo waxa weey hadii la guurayahay kala aragti duwanaanshaha ninkii soo afjaray ee ku dhiiriday isagu xilliga ugu fiicanna waxa la hogaamiyuhu goorma hogaamiyaha la bartaa hogaamiyaha waxa la bartaa marka ay xaaladu adag tahay hogaamiyuhu wuxuu soo baxaa marka xaaladu ay adag tahay hogaamiyuhu ma soo baxo marka xaaladu ay tahay xaalado iska caadiya hogaamiyaha waxa la bartaa xilliga dadkiisu ay u baahan yihiin waa nin dadka reer SSC Khaatumo sumcad weyn ku leh Cabdirasaaq Khaliif waxa weey mas'uul oo u qalma ninka saddexaad waa Dr. Maxamed Shiine madaxweyne ku-xigeenka dawladda SSC Khaatumo ninkaasi waa siyaasi dadka reer SSC Khaatumo ay tijaabiyeen waa nin lagu xasuusto hanaanka dawlad dhiska qaybta uu ka yahay haday tahay ciidamada haday tahay maamul dadajinta haday tahay madaxweyne ku-xigeenku ninkii ugu horeeyay gobolka Sanaag ka hirgeliyay dawladnimada SSC Khaatumo gaarsiiya ku dhiirada dadka xaq jirka ee qadiyada SSC Khaatumo
runtii la oran karo awna riska waxa weeye ay ka soo bilaabatay waa cidda ay markaasi wataan waxa weeye hadii la ku taageersan yihiin waa nin u qalma waa aqooyahan waa ragii waxa weeye hadii la ku reeyay muddo badan ku soo jiray qadiyadan xitaa khaatumo la asaasin waa ragii geed gaabo koray in khaatumo meesha hadda ay joogto ay gaadho waana nin u qalma isaguna kursigaasi inuu dadka wax ku hogaamiyo iga raalahaada mashruuciinta kale way jiraan mashruuciin kale laakiin iyagana insha Allah ta'ala waan barnaamijyada kala ka dhigaya waan sii deyn laakiin naga reer AC khaatumo haddana shacabnahay niba wax laga yahay kii hooyada guursada waa adeerkeen hadda kii madaxweyne noqdana madaxweynaheeni weeyeen laakiin waxa rabnaa nin walba musharax wato wuxuu ku bedelayo mucaaradka muxaafidka waxaan leeyahay qof laguma bedelo waxa weeye waxa lagu bedela aragti lagu bedela laakiin qof ku bedelaya absolutely shaqeynaya ma aha arinta cadaaladaha la isu daaray ee leeyahay ama dadka midnimadooda lagu kala dhantaalayo hebel baa waa sanadla soo shaqeyn jiray hebel baa halka maray jiray waxaasi meesha waa dhamaatay khaatumo xilligii go'it lagu qaato waxa weeye qof shakhsi afraad ay meel kale la aad jireen way soo dhaaftay khaatumo waa dawlad qaan gaadhay dadkeeda ilaashanaya nidaamka hadda dhisan administration kaana waa nidaam taabagalay cid looga baqayo ma jirto cidii looga baqayo waan isla cadowga ku yihiin qadiyadan halkan aad ka daawanaysaa laakiin waxana waa kursi challenge badan baa dadka waxa weeye hadii la kuuriyay siyaasiyiinta dhaxmari doona kuraasta lagu hirdami doona waxa weeye kursigu waa calaf waa in la ilaaliyaa marka koowaad midnimada musharaxadoodina dadka ha ku dirin waxaad ku bedelaysid waxaad qabanaysaan sheeg laakiin hebel hadda caydid ama firdhiye caydid ama xabsa khaliif caydid ama doctor maxamed shiine caydid ogow rakaab xumadaasi wuxuu effect ku yeelanayaa musharaxadoodid waa musharax kala caayin waxaad musharax kale kaga fiican tahay iyo waxaad qabanaysid dadka u sheeg laakiin ayda iyo aflagaadada iyo wax laga heshiiyay waxa dhale laga noqday in dib loo soo farfaaro wartaasi midnimadii iyo wadajirka ay ilaalinay waxa horseed u noqon mayso kala dhantaal bay noqonaysaa taas waa taa talooyinkaas aan u jeedinaya labada qolaba mucaaradka iyo muxaafidkaba arinta labaad shirweynihii waa dhacaya sida madaxweynaha dowlad goboleedku uu sheegay SSC Khaato Cabdiqaadir Axmed Wali shirweynahaasi waxa ka soo qayb gali doona dhammaan beelaha SSC iyo Highland degta Sool Sanaag iyo Cayn iyo Highland iyo qaybo kamid ah gobolka Bari ba shirkaas yeelan doona waa loo dheeyay ayuu noqon doona waayo 12 qodob ay 6 February ka soo baxay Laas Aanood 2023 bay ku jirtay qodob kamid ah in 2 sano kadib la isugu yeero shirweyne dadka dhan la isugu yeeriyo hadaa xilligaas xilli adag lagu jiro dadka deegaanku ay dagaal kula jireen cadawga argagixisada ee sanam shirweynahaas la isugu imaan doona beelihii qaybo kamid ah gaaray gudaha Laas Aanood ergooyin baa la soo xiri doona especially reer Sanaag way imaan doonaan dawladan SSC Khaatumo waxbay wada dhisan doonaan reer Khaatumo iyo reer Maakhir waxbay wada dhisan doonaan in badan baa deegaankaasi la kala ilaaliyay dadyowga ku nool oo loo kala sheekeeyay oo la isma raaci karaan oo ma midoobi karaan oo wax isma weydiin karaan iyagoo dana gaar ah laga leeyahay ama ha ahaato Puntland ay doonayso kuraas dadkan in curaar u haysato xamar maal walba ku tagto dhulkooda curaar u haysato waxa weeye cadawga ay kula shuraakayso dhul iyo dal iyo deegaan aynay lahayn dhinaca kale jabhada argagixisada sanam in iyaguna beesha caalamka iyo gaalada iyo adduunka ay dhaqaale kaga cunaan oo mashaariicda ay kaga cunaan dhulkaasna la yiraahdo dhul ugu muraysan yahay labadaasina way isu tagi doonaan dawlad ayagu leeyihiin oo ay ku midoobeen bay dhisan doonaan iyagoo aan cid la khasbin iyagoo maankooda iyo miirkoodu ay qabaan iyagoo tala badan rogrogay meel fiican bay taala waa arkay kuwa Puntland xeelka hayo oo marka ay Khaatumo arrimahan ka hadasho ama madaxweynaha Khaatumo u hadlo miidiyaha ka hadlaan waa jawaabaan waa baxbaxsadaan marka jabhada argagixisada ay iyaguna baatooyin ka geystaan Sanaagna ma ka hadlaan هذا امتحان كي يقول بيرجع سنة أو ملك من سنة لقي كم يحضن
sababta oo heshiis bay kula jiraan oo ogol yihiin waa abo ka yariga eli ee ka weyn ugu soo daa wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal mashruucaha maamuli doonta qoraanta bisha July baa la qaban doonaa ilaa hadda ergooyin badan baa gaaray laas aanood oo qayb ka noqon doona dawlad goboleedkaas SSC Khaatumo runtii kuraasta waa la balaadhin doonaa tartanka kuraasta xilka madaxweynaha waxaan leeyahay qoliyaha hadda waxa weeye ismahadiyay heer SSC Khaatumo special baasha dhulbaahanta ka soo jeedo waxaan leeyahay dawladda waa la wadaaga kuraasta iyo deegaanka iyo xilalkana waxay noqonayaan meerato musharaxiin badan oo baa soo bixi doona reer sanaaga ama reer maakhira ayaguna kursigaasi waxa weeye soo sharaxi doona dadka la soo dhaweeyo musharaxiinta la soo dhaweeyo ilaahayna waxaan ka barayaa in si wanaagsan uu kulankaasi iyo shirarkaasiba inoogu dhameeyo insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynayaa war hal ilaaliyo midnimada iyo wadajirka hal ilaaliyo oo tartankana hal wanaajiyo waxaanu ku soo caanamaalnay midnimada hal ilaaliyo wixii challenge xandaabka siyaasadana warqaab positive ah hogaamiyaha ama siyaasiga aad sharxa awoodid iyo siyaasadiisa waxaanu bedelenaa laka ay way reebanta hadaad ay dantid oo nin daba gashid oo nin siyaasiga irdigiisa shirad isku xidubtid ogow de waxa daawacaysa musharaxa daawacaysa waxaan wax ku xeeran maarta war wajiri baa leeyahay dadka caayabale hogaamiyaasha ama siyaasi sharaxiinta waxaan leeyahay dadka idin taageersan way jihan kartaan wixii dilqaaf oo caaya waxa uu hadii la kuuran yahay weyn ay ka fogaadaan iyaga intaas la way hadii kala saameyn bay ku yeelanaysaa tartan doorasho la galayaa insha Allah anagu ciidan taageerano iyo ciidan sharaxayno waqtigeedan insha Allah taala suganaa meelo badan marka fiirayna ninkan isleenahay waxa weeye inaan u sharaxano halkaas hogaanka SSC Khaatumo marka waqtigeedan la suganaa insha Allah intaas aan ku soo gabagabeynaa insha Allah هلا إلى midnimada هلا إلى خير بمركز إن شاء الله تعالى السلام عليكم